السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناكسن أو حيسنة فضلا مركا كوباد سبسكرايب صار الجنالك مرلبادنا la soco sheekadii qiimiga lahayd ee noo sii socotay ee Sindibaad Alxamaali iyo badmaaxii Sindibaad ahaa safarkii koowaad jasiiradii dhaqaaqday iyo fardihii badda sheekadu waxay noo socotay wuxuu ahaa nin taajir ah oo ganacsade ah wuxuuna ka mid ahaa dadka kuwooda ugu maalka badan laakiin wuxuu geeriyooday anigoo aad u yar wuxuuna iga tagay hanti fara badan markii aan weynaaday ayaan dhammaan hantidii gacantayda ku dhigay waxaana ahaa mid si la yaqaano ugu raaxaystay hantidaas waxaana u maleynayay inay weligay sidaas ahaanayso oo hantidaas sii lahaanayo waxaan sidaas ahaadaba waxaan markii dambe ku soo baraarugay anoo ku sii socda meel maran iyo xoolo la'aan maadaama aan hantidii sidaan doono ugu takrifalay markaas ayaan isku dayay inaan isku caqli celiyo oo noloshaas khiyaaliga ah ka baxo intaanan faqri faramaran noqonin waxaan ahaa mid maqla xikmad laga wariyay nabiyullaahi sulaymaan binu daa'uud taasi oo ahayd 3 ayaa ka khayr badan 3 maalinta dhimashada ayaa ka khayr badan maalinta dhalashada ayga nool wuxuu ka khayr badan yahay 7 ay oo dhimatay qabriguna wuxuu ka khayr badan yahay qasriga markaas ayaan meeshii ka kacay waxaana isku soo ururiyay kastii yareed ee hanti ahaan iga soo hartay kadib ayaan go'aansaday inaan safar galo misna ganacsada noqdo waxaan tagay suuqa waxaan soo iibsaday badeeco iyo alaab badan waxaan go'aansaday inaan badda ku safro isla markaasna badeecada aan meel kale u iibgeeyo si aan faa'iido uga dhaliyo waan soo baxay markaba ayaana soo fuulnay annagoo koox ah waxaana ahayn kuwa jasiirad kasta iyo magaalo kasta ku leexda annagoo badeecada aan wadano dadka ka iibinaynay wixii aan sidaas ahaanaba waxaa maalintii dambe ku soo dhacnay jasiirad aad u qurux badan misna aadba moodo beer ka mid ah beerihii jannada markaas ayaan markabkii joojinay xeebtana ku xirnay dhammaanteedna waxaan u daadegnay dhankii iyo jasiiradii waxaan ku kala yaacnay jasiiradii xilli qaarkiin ay bilaabeen inay gudaha u galaan qaarna nasiimo halka qaar kalena ay dab shideen si loo kulaalo waxna loogu kariyo aniga waxaan ka mid ahaa kooxda jasiiradda daawashada u aaday si aan quruxdeeda u arko waxaana ahayn kuwo wax cuna waxna cabba iskana baashaala kuna raaxaysta jasiiraddaasi annagoo sidaas ah ayaa waxaan ka war helnay kabtankii markabka oo qaylinaya misna war rakaab war soo cararay war markabka u soo cararay wax la waxaad haysaan faraha ka qaada oo naftiina la soo cararay waayo jasiiraddan aan korkayga saaranahay waa kalluun weyn oo badda dul heehaabaya geedahana waa hore ayay jasiiraddan ka soo baxeen markii aad dab kashidan waxay dareentay kulayl taasoo kaliftay inay dhaqaaqdo waxaadna qarka u saarantihiin inuu biyaha dhexdiisa quuso oo dhammaantiin halkaas ku maashowdaan ee meesha iskaga soo carar naftiinana badbaadiya markii ay rakaabkii maqleen hadalkii kabtanka ayay degdegeen iyagoo u wada cararaya dhanka markabka waxayna ka carareen dhammaan wax kasta oo ay gacanta ku hayeen waxayna u kala baxeen kuwa markabka gaaray iyo kuwa gaari waayey oo kalluunkii ku dhaqay kalluunkii aan jasiiradda moodaynay markuu dhaqaaqay dhammaan wixii korkiisa saarnaa badda ayuu la galay halkiina aan jasiiradda moodaynayna waxay nagu noqotay badda moolkeeda aniga waxaan ka mid ahaa kooxdii markabka gaari weysay waxaana ku hanfanay biyihii badda hase yeeshee nasiib wanaag ilaahay wuxuu ii sahlay gobol weyn oo alwaax ka samaysan kaasoo ka mid ahaa alaabtii ay rakaabka meesha uga carareen markaas ayaan alwaaxdii ku degay anigoo korka ka fuulay sidii doon yar oo kalena way ila dhaqaaqday anigoo horay u socodsiinaya xilli hirarka badda ay bidix iyo midig iga garaacayeen markiina wuu naga cararay ayadoo ay ku ambabaxeen kooxdii badbaadi gadaalna uma aysan soo fiirin dadkii maanshoobay waxaana ahaa mid sii dhowra markabkii una qayliya ilaa uu iga qarsoomay markaas ayaan yaqiinsaday inaan halaagsamay oo ay dhammaatay kadib waxaa soo galay habeenkii anigana weli xaaladii ayaa ku suganahay waxaana sidaas sii ahaa maalin kale iyo habeen kale dabaylaha iyo hirarkana waxay ahaayeen kuwo hadba jiho ii wada ilaa ay markii dambe igu soo tuureen meel jasiirad ah waxaana jasiiraddaasi ku yaalla geedo dhaadheer oo badda ku dheraran waxaan ku soo degay jasiiradda anigoo daal iyo diif iga muuqato gaajana ii dheer tahay waxaana isku tuuray xeebtii sidii qof miir daboolmay oo kale markii aan soo kacayna waxaan arkay lugihii oo i bararay waana ka socon waayey markaas ayaan
markaas ayaan sii murugooday. Nasiib wanaag jasiiradda waxaa ka baxay geedo mirahooda la cuni karo, sidoo kalena waxay lahayd ilo biyo macaan ka socdaan. Waxaana bilaabay inaan mirihii cuno, biyihiina cabbo. Waxaana sidaas ahaado muddo maalmo iyo habeenadooda, ilaa ay xoogaa tamar iga soo gashay, sidii in ruuxda dib iigu soo laabatay oo kale. Waxaana bilaabay dhaqaaq iyo socod, lugihiina bararkii way ka yaraadeen, anoo awood u yeeshay inaan ku socdo. Waxaan iska fariistay jasiiraddii, anoo bilaabay inaan ka fikiro abuurka Alleh. Waxaana gacanta ku haystay ul aan geed meesha ku yaallay ka goostay, anoo bakoorad ahaan u adeegsanayay. Waxaan sidaas ahaadaba ugu dambayn waan caafimaaday. Maalin maalmaha ka mid ah, anoo xeebta socda ayaan waxaa arkay qof aan mooday inuu reer aakhiraad yahay oo meel fog iga gacan haadinaya. Markaas ayaan waxaan haddana is iri, waa bahal ka mid ah bahallada badda. Waan u dhowaaday anoo fiirinaya si aan u hubsado wuxuu yahay mise waaba faras weyn, wuxuuna ku xiran yahay jasiiradda dhinaceeda kale. waan u sii dhawaaqay. Markaas ayuu bilaabay inuu qaylo aad u xoogan, taasoo iga argagixisay. Waxaana damcay inaan dib u laabto, hase yeeshee waxaan arkay nin dhulka ka soo baxay, wuxuuna igu qayliyey isagoo soo raacay. wuxuuna ahaa mid ileh, yaa tahay, xaggeed ka timid, sideena halkan ku timaaday? Markaas ayaan ku dhahay, sayidii, waan ogahay inaan ahay nin qariib ah. waxaana saarnaa markab kaasoo badda ku maanshoobay. Waxaana ka mid ahaa dadkii markabkaas saarnaa, balse Alle ayaa igu soo badbaadiyey alwaax yar, ilaa uu alwaaxdaas jasiiraddan iga keentay. Markuu hadalkayga maqlay ayuu gacanta iga qabtay, wuxuuna i dhahay, soo bax. Markaas ayaan raacay, isagoo i geliyey god weyn oo dhulka ku yaallay, wuxuuna ii keenay xoogaa cunto ah. Anna waxaan ahaa mid aad u gaajaysan. Waxaan bilaabay inaan cuntadii cuno ilaa aan ka dhargeeyey. Kadib wuxuu i weydiiyey xaalkayga iyo siday wax u dhaceen. Markaas ayaan dhammaan wixii aan la soo kulmay uga sheekeeyey, aad ayuuna ula yaabay. Markii aan qisadayda u dhammeeyey ayaan ku dhahay, Allaan kugu dhaariyey sayidii, adigoonan ii qaban aniga waan kuu sheegay dhammaan wixii aan la soo kulmay. Waxaana jeclaan lahaa misna kaa sugayaa inaad adna ii sheegto waxa ku qabsaday iyo sababta aad halkan u joogtid. Waxayna tahay sababta uu faraska ugu xiran yahay xeebta. Markaas ayuu i dhahay, anigaa kuu sheegayo ee i dhegayso. Wuxuuna hadalkiisa ku bilaabay,